kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobadaanu ku soo qaadi doono barnaamijyadeedkan hadduu alla u qadaro waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo garab lama filaan ka helay dowladda waddanka Kenya iyo xog laga helay sirdoonka Kenya oo gebi ahaanba fashiliyay shirkii lagu waday in 12 bishan uu ka dhaco magaalada Kismaayo isla markaasina ay ka qayb gali lahaayeen xubnaha mucaaradka. haddaba waxaa la wadaagi doonaa macluumaad iyo xog xasaasi ah oo arintaasi ku aadan. qodobada kale waxaa ka mid noqon doona macluumaadkii ugu dambeeyay siyaasiyiinta mucaaradka oo shirar xasaasi ah saacadii la soo dhaafay ku yeeshay magaalada Muqdisho. haddaba shirarkan maxaa lagu gorfeeyay faahfaahin ayaanu idinkaga heenaa. salmida waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii iyo xogihii ugu dambeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si la yaab leh isaga diiday dalab ay hordhigeen sirdoonka waddanka Kenya iyo madaxweyne Farmaajo oo ka badbaaday dabin kale oo weyn waan idiin soo gudbin doonaa. salmida waxaad daawan doontaan macluumaadkii ugu dambeeyay shir albaabadu u xiran yihiin oo xalay ka dhacay filla Soomaaliya isla markaasina dhexmaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo hogaamiyaasha dowladda goboleedyada daacadda waa filla Soomaaliya. maxaa shirkan lagu soo qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shirkan kala kulmay wax uusan filaynin. haddaba maxay yihiin arrimahani waan idin la wadaagi doonaa. wadadaas iyo kuwa kale ayaanu ku soo qaadi doonaa barnaamijyadeedkan hadduu alla weyne uu qadaro. fadlan daawada haddii aad tasaxib nugu cusub nugu soo biir adigoo muuqaalka lag saaraya sidoo kale tan subscribe saaranaya barteen YouTube kor kumanaya wararkeena dhacdooyinka xisaalan goor balkan ku soo baahino waa hagaagan ku bilaawno wararkeena. wararkeena waxaanu ku bilaabi doonaa isla markaasina ugu horeysiin doonaa wararkii macluumaadkii ugu dambeeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo garab lama filaan ka helay dowladda waddanka Kenya iyada oo ay soo baxayaan macluumaadyo iyo xogo la xiriira. haddaba sida ay xaqiijinayaan ila wareedda xilkas ah dowladda waddanka Kenya ayaa markaan qaaday tallaabo ay ku garab istaagayso filla Soomaaliya iyadoo gebi ahaanba baajisay shirkii lagu waday inuu ka dhaco magaalada Kismaayo. sida aad labada socotaan magaalada Kismaayo waxaa lagu waday in 10 ilaa iyo 15 bishan aynu ku guda jirno ee December uu ka dhaco shir weyn oo isugu imaan doonaan xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo dhammaan siyaasiyiinta mucaaradsan dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada halkaasi oo indhaha si weyn lagu hayay waxyaabaha ka soo bixi doon. laakiin sida aynu xogaha ku weelino dowladda waddanka Kenya ayaa gebi ahaanba baajisay shirkaasi iyadoo oo shirka ay ka harsan wax ka yar 3 maalmood ayaa dhammaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo sidoo kaleeto madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxaa looga yeeray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaana sida la xaqiijiyay u yeeray taliyaha sirdoonka dalka Kenya Nuurdin iyada oo macluumaadku ay sheegayaan in lagu wargeliyay in uusan dhici karin shir ka dhaco magaalada Kismaayo. haddaba dowladda Kenya ayaa la xaqiijiyay in tallaabadan ay u qaaday si ay u qanciso filla Soomaaliya oo ka aqbashay soo jeedin la xiriirtay in ay joojiso barnaamij meesha looga saar rabay Axmed Madoobe oo New Jubbaland looga dhisay gobolka Gedo. filla Soomaaliya ayaa la sheegay in dowladda waddanka Kenya ay u sheegtay in ay dowladda Kenya ay markaasi ku cadaadiso dowladda Soomaaliya in barnaamijka New Jubbaland la joojiyo halka Axmed Madoobena oo Kismaayo uu ka wadayo shirar lid ku ah dowladda filla Soomaaliya fadhida ee madaxweyne xasan sheekh uu hogaamiyo. dowladda Kenya ayaa wargara u aragtay walaaca dowladda federaalka iyada oo qaaday tallaabadaas oo ay ku garab istaagayso filla Soomaaliya. arintan ayaa dadku qaar waxay ku macneynayaan inay tahay mid dowladda waddanka Kenya ay ku doonayso in ay markaasi ku sii xaqiijiso si joogitaanka Axmed Madoobe shirka markaasi marka la eego fil magaalada Kismaayo oo uu sii joogo Axmed Maxamed Salaam Madoobe maadaama dowladdu dagaal ay la gashay maamul iyadoo ka garab dhisi rabto ay dowladda Kenya ka hor istaagtay. haddaba sida ay xaqiijinayaan wareedda xilkas ah Axmed Madoobe ayaa bilaabay cagadiid kadib markii cadaadis xoog leh uu kala kulmay dowladda waddanka Kenya waxa uu sida wararku ay sheegayaan oo dhowr jeer uu dib u dhigay shirka waxaana macluumaadku ay warinayaan in marka hore uu ku marsiimoonayay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo arrimo caafimaad ugu jiro dalka Imaaraadka Carabta. laakiin marka uu Deni yimaaday ayaa waxaa la sheegay in Axmed Madoobe uu soo wada baxay isagoo xaqiijiyay halka shirka laga haysto oo ah Nairobi. xubnahan ayaa la isugu yeeray iyaga oo lagu wargeliyay in aysan suuragal ahayn in hadda Kismaayo lagu qabto shir lagu dhaleeceeyo dowladda. geeska kaleetana magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya kulamo aan kala joogsi lahayn oo ay yeelanayaan siyaasiyiinta mucaaradka kuwaasi oo looga hadlayo xaaladda kala guurka ah ee dalka iyo sidoo kale ajadaha shirka mustaqbalka golaha mustaqbalka Soomaaliya ee magaalada Kismaayo. sida xaqiijinayaan ila wareedda lagu kalsoon yahay xubnaha siyaasiyiinta ayaa waxa ay si gaar ah kaga hadleen arrimo la xiriira xaaladda guud ee waddanka. qodobada lagu soo qaaday shirarkan waxaa ka mid ah
doonista xubnahan golaha samata bixinta ay ku doonayaan in madaxweyne Farmaajo ay kaga dalbadaan in uu ka qayb galo shirka magaalada Kismaayo iyo sidoo kale in shirka magaalada Kismaayo uu macno yeesho walow hadda uu wajahayo wajiga xoog leh. Qodobada lagu soo qaaday shirkan waxaa kamid ah sidii dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud loogu hor istaagi lahaa arrimaha sharciyada marka la eego dhulboobka oo ay dowladdu federaalka Soomaaliya ay ku lug leedahay iyo arrimaha kale ee la xiriira arrimaha doorashooyinka oo kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay wadaan iyo sidii loo dardargelin lahaa shirarka aan kala joogsiga lahayn ee siyaasiyiinta mucaaradka. Laakiin saddex qodob ayaa ugu muhiimsan oo kulankan laga soo xigtay. Qodob waa in madaxweyne Farmaajo ay siyaasiyiinta mucaaradka ay ka doodayaan suuragalnimada loogu qancin karo inuu kusoo biro golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo inuu tago shirka magaalada Kismaayo. Labo waa inay xubnuhu ay wakiisheen Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in uu dowladda waddanka Kenya xubnaha la kulmayo isaga uu wakiil uga noqdo maadaama uu hadda Nairobi uu ku sugan yahay. Saddex waxaa la qaadaa dhigay qaab walba oo loo hor istaagi karo filla Soomaaliya iyada oo lala imaanayo hal abuur cusub isla markaasina meel la iska dhigayo hal abuurkii duugoobay cambaaraynta ku saleysnaa markaana lala imaanayo waddo dhaba oo lagu hor istaagi karo kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Geesta kaleetana daawadayaal haddii aanu fiirino madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku gacan saray suldaanka waddanka Kenya in uu ka qayb galo wiiris rasmi ah oo markaasi madaxda siyaasadda Soomaaliya ee dhinacyada darafyada mucaaradka loogu yeeray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa arrintan ganafka ku dhuftay iyada oo madaxweynuhu uu ku helay taageero weyn. Ilwareedda ayaa sheegaya in sirdoonka waddanka Kenya ay si toos ah ula xiriireen madaxweyne Farmaajo isla markaasina ay ka dalbadeen in uu markaasi qayb ka noqdo madaxda lagu casuumay magaalada Nairobi halka dadku qaarna ay ku macneeyeen madaxda looga yeeray magaalada Nairobi. Farmaajo ayaa yiri dal shisheeye uma aadayo dan Soomaali dhex taalo Kenya ma taalo xalka Muqdisho Garowe Beedhabo ama Kismaayo aanu isugu imaano haddii halkaasi ku sugan yihiin madax Soomaaliyeed oo ka hadlaya dan Soomaaliyeed ayuu yiri. Halka siyaasiyiinta mucaaradka ee madaxweynayaasha Puntland iyo sidoo kale Jubbaland marka ay sirdoonka Kenya ay u yeereen ay u kala dhoonteen magaalada Nairobi. Isku soo wada duub qaar ka mid ah mucaaradka ayaa dalbanayaan in shirka magaalada Kismaayo aan la baajin si uusan markaasi fashil u dhicin halka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhinaciisa la sheegay inuu ku calaacalay sirdoonka waddanka Kenya isla markaasina ku yiri shalay adiga ayaa iga joojisay New Jubbaland maanta waad u jeedaa waxa uu Axmed Madoobe u wado markaasi warcad aanu ka helna ayaa uu madaxweyne Xasan ku yiri ninka la yiraahdo Nuurdiin Xaaji oo ah taliyaha sirdoonka Kenya waxaana warka uu ka helay ay tahay in la baajiyo gabi ahaanba shirkii magaalada Kismaayo. qodobkaasina raahdaada ku aadan hoos ayaad noogu reebi kartaa daawade. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xaray waxa uu madaxtooyada Soomaaliya uu kula yeeshay kulan gaar ah oo albaabada ay u xiriyeen xubnaha siyaasiyiinta madaxweynayaasha ah ee dowlad goboleedyada hogaamiya kuwaasi oo daacad u ah filla Soomaaliya. Kulankan ayaa laga soo xigtay xubno markaasi muhiim ah oo si dhow markaasi ula socday dhaqdhaqaaqa kulankan in uu ahaa kulan lagu kala kacay. Macluumaadku ayaa sheegaya in la isku khilaafay hal qodob oo weyn oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay miiska u saareen madaxweynayaasha Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle. Qodobkan ayaa la sheegay inuu yahay in xubnahan ay dalbadeen sida uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha gobolka Banaadir Muungab ay xisbigiisu ugu aqoonsadeen inuu yahay musharaxa xisbiga Xasan Sheekh ee gobolka Banaadir in iyaguna loogu aqoonsado in deegaanadooda kaliya iyagu ay ka tartami karaan aysan cid kale la tartami karin qoorqoor lafta galeen iyo sidoo kale Cali Gulaabe. arrintan ayaa waxay ka dhigan tahay in maqaawir siyaasadeed ku jirta xisbiga Xasan Sheekh sidoo kale tan ka soo jeeda deegaanadaas oo danaynayo in kursiga ugu sareeyo ay ku fadhiistaan in ay meesha ka bixi karaan haddii madaxweynuhu ogolaado iyada madaxweyne Xasan Sheekh uu ku dhici waayay jahwareer ayuu madaxweynuhu kala kulmay waxaana uu sheegay inuu soo tashanayo isla markaasina dib la isugu imaanayo kulamo kale in ka badan 6 saacadood xiriir ah ayuu kulankan qaatay sidaynu ka soo xignay ila wareediyo xilkas ah. wadaan qaybtan intaas ayaan jeclay inaan ku soo meeraha halkan la soo gaadhay aad ayaad u maasantahay daawade nagu soo bir muuqaalka like subscribe soo barteen YouTube-ka rukumo wararka iyo dhacdooyinka xisaab aan gurbalkan ku soo baahinimada lacana warkan nabadgelyo.